بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlayaa fariin naloo soo gudbiyay oo aan markii hore u arkayay maxay ahayto ay u arkayay laakiin gadaal daba markaan arrintii ka baaray aan ogaaday inaanay ay ahayn laakiin ay tahay heel marka fariinta dhowr sano ka hor ay soo gaartay adiga 2 sano ka hor meelahaas gabadh macalimada oo maxay ahayto dadka aan isku diinta nahay ah oo school secondary school macalimadka ah ayaa soo sheegtay arrintan oo ah waxay tiri waxaan idin weydiiyay walaalayaal caruurta Soomaalida maxaa ka soo ura caruurta Soomaalida iska daa dharkooda iyo iyaka maxay ahayto bugaagtooda markaan saxayay bugaagta homework iyo waxaas aan eegayo bugaagtooda naftirkooda waxba ka soo ura marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa community-giina inaad gaarsiisaan fariintan oo ay arrintan wax ka qabtaan saasay gabadha fariinta ku soo dhiibtay marka ani fariinta la ii sheegay waa isxanaajiyo waa iswaalay waxa ay rinaa naga tag maanakay annaka saas nagu leedahay naagta adabta daran hase yeeshee arrimihii markaan gadaal dib ugu fiirsaday maanta anaa message idin wada message-kii gabadhii 2 sano ka hor aan diiday maanta anaa message idin wada message-ka aan idin wada waxay tahay xan badana suuqa noo taala xanta suuqa noo taala waxa waaye horta magaalada dad walbaba waxay leeyihiin dhididkooda iyo magaranaysa ismeelkooda u khaaska ah ay leeyihiin laakiin annaka waxa naga soo ura ma aha wax xun ma aha laakiin waa wax dayac keenay wax xumaan keentay ma aha iyo wasakh laakiin waa wax dayac keenay oo ah inaan isticmaalno bahalkan unsiga la leeyahay si qalad loo isticmaalo unsiga oo aan hore u taabtay marka hore waxa uu ka sameeysan yahay waa waxyaabo la isku dardaray oo cadar badan oo adag ku jiro cadarkaasna uu kiimika ka soo jeedo sideedaba marka unsigii waxaan sameynaynaa dhaqan waxaan u leenahay guryaheena maanta oo dhan dhariga shidan cunta la karinayaa markii cuntada la kariyo gurigii cunto ka soo urto intii darashadaha la furi lahaa guriga la leerin lahaa ayaa la soo qaadayaa bahal xun oo hadda aan Soomaalida kuba dhibsaday oo imaaraadka iyo meelahaas laga keeno carabaha laga keeno la buufinayo sunta adduunka ugu qatarsan ah oo guryaha lagu buufiyo bahalkaas horta guriga lagu buufina oo meel walba lagu buufina waxyaabaha carruura ay neefta ka qaadeen iyo ama in unsi lagu shido unsi waxa laga sameeyay wuxuu ka soo jeeda aan la ogeyn oo sun ah guriga lagu shido gurigii oo cuntadii ka soo urayso oo aan darashadiiba la furin markii unsi lagu shido oo waxay urti la baabi'iyo wixii markii unsigii ay sheekadiisa guriga ka baxdo wixii dib ay isula wada urti micnihii iyo ur ka sii daran ayaa sameysmaya next day-giina waxa sameysay the same next day-giina waxa sameysay sidoo kale marka wixii way isbiirbiirsanayaan marka horta annaka unsiga iyo the way loo isticmaalo iyo darashadaha aan la furin iyo guriga maanta oo dhan cunto lagu karinayo arrintaas bakhuur gooni ah sameysay bakhuurkaas marka waa bakhuuradan la leeyahay dadka Soomaalida maxaa ka soo ura ko labo arrinta kale oo aan notice gareeyay aniga ahaan oo aanay cidna igu dhihin waxay tahay Soomaalidan waxaan maqalnay xabata sawdada caafimaad leh xabata sawdada dawo ah okay xabata sawdada waa dawo cidna ma diidayso nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam hase yeeshee isticmaal bahasha oo iska habay bahasha inta iska marsatid ha iska bixin oo ku seexo oo ku soo toos oo ku bax oo ku seexo oo ku soo toos oo ku bax macnihii waa khalad marka percentage aad u sareeyo oo khaasatan haweenkeena ah ayaa xabata sawdan meelan ka mara laahay anigii walaashiin ahaa community-giina ahaa isku dhaqan iyo isku dabeecad ahaa ayaa supermarket-kii koonaha ah ka martid xabata sawda ka soo urayso xabata sawda isticmaal dawo waaye laakiin waa inaad xabata sawdada marka isticmaashid
aad sidii aad maxay ta urteeda ula dagaalami lahaydna aad taqaanaa oo aad iska nadiifisid. marka xabata sawdadan kowde waa inaan wax ka qabano nalagu caayinayo nalagu xamanayo kow. baquurkan iyo waxaan aan la garanaynay guryaha lagu shidaayo hadhowtiina urteedii isbedelayso oo ciyaalkii iyo buugagtii iyo koodharkii iyo meel walba kasoo urayana waa in wax laga qabto. maxay ahayd to arrinta kale oo iyadana iga yaabisay waxay tahay shalaytadan aan la kulmay gabadh shalaytadan lama kulmin ayaan arrintaas la arkay. cadarkan carabaha laga keeno ayaa gabadh Soomaaliyeed intay isu soo marisay aniga gabadhayda shalay isla soconay inaan been sheegayn ilaahay baa igu og. gabadhaas cadarka intay isu soo marisay ayay jidka dhan ku qabsatay jidka dhan one traffic light to the other traffic light intaan gaarayay gabadhaas wixii kasoo urayay waa isii urayay. marka cadarkan strong ah oo carabaha laga keenay kiimikada ah na maxay ahayd haddaa marsanaysaan oo badooqiina uu saas ilaahay ka dhigay dadka wixii marsadaan la hadlayaa qof kasta ma marsada hadda diintaabna loogu sheegayba in adigoo saas u kamkamsan aadan ummadda dhex marin ayaa diintana loogu sheegay. marka haddii xitaa aad cadar ama barafuun ismarinaysid inaad saas isaga waalisid oo magaalo dhan ku ursato ama ku dhibsato ada gabadhii shalayta anaaba dhibsadayba I'm sure dad badanna waa dhibsanayaan. imagine gabadhaasoo suuqa maraysa high streetka maraysa hadday bas ama baabuur kula soo korto dadaa ma tagaaya because anaga cadarkan adaga marsano iyo waxaan aan ismarino dadka ma yaqaanaan. annaka naftirkeena qaar naga midoo waxaan arki jiray oo ayeeye iyo hooyo ay marsan jirtay arki jiraa hadda micnihii la yaaban anaa kamid ah because waxaan waa so strong waaye xataa haddaa marsanaysid si yaroo light ah iskugu taabo maxaa yeelay waxaan caraftan waa caraf synthetic ah caraf kiimika kasoo jeeda waaye. marka waxaan neefaa laga qaadi karaa adaa xanuuna ka qaadi kara ilmahaaga xanuun ka qaadi kara odaygaaga xanuun ka qaadi kara urtaan strongka ah aa isku dhamuuqaysiin. marka maxay ahayd to cadarkan ulusa la ismarinayo waa diiniyan sax ma aha. talabaad maxay to waa magaalo joog xumo magaalada kumaydan arag wax saas wax uga soo carfaan magaalada ma joogaan. that strong barfuunka saas ilaa xadkaasa wax ismariya ummadda ilaahay aad dhex martaan kuma jiraan. marka barfuunkaas cadarkaas strongka ah unsigaas qarmuuno guriga lagu shidaayo dharkii iyo wixiiba qarmuuniyey. maxay ay tahay xabata sawdadan iyada naftirkeeda sida loo isticmaalo waa inaad barataan. xabata sawdada Soomaalida isticmaalaan waa xabata sawda aad jiib u ah oo aan sax ahayn oo wax yar oo carabi inta la idinku soo qorqoray aabad moodaantii waqtigii nabigii calayhi salaatu wasalaam la isticmaali jiray inay taaba u haysatiin. xabata sawdada waa iyadoo fiican oo quality waa inaad raadsataan. ta quality-ga asaas uma sii urxuma urteedana aad iska basrisaan. macnihii waa ceeb in la yiraahdo maxaa naagaha Soomaalida ka soo ura iyo maxaa Soomaalida ka soo ura in la yiraahdo waxa naga soo uro dhan waa aqaanaa wax xun ma aha laakiin waa wax u baahan in la qorsheeyo oo la habeeyo oo aan lagu caayin oo aan lagu xamanin. maxaa yeelay magaalo dhan waxa ka soo uraya waxa way xabata sawda khaasatan haweenkii xabata sawda ka soo urayso. marka waxaasna wax fiican ma aha khaasatan qolihiina Yurub joogo hana ceebeynina arrinta dib ha loogu noqdo. maxay ahayd to caruurta naftirkeeda haddii ay iskuulka aad u dirtaan iyagoo dayacan waa lagu buli garaynayaa caruuraha kale ku buli garaynaya. macalimadaas hadda fariinta soo dirtoo kale waa qof anaga nala diin ah iyada waa ka hiil laakiin kuwa kale kugu buli garaynayo macnihii kugu qiyaasayo dhahay dadkan maxay ahaayeen qashinka oo wasaqada ah oo urayayno. macalimiinta kala ciyaalkaaga macnihii fikrad khalada ka qaadanaya markay arkaan caruurtaadii oo dayacan. marka please videogan haddaad daawatid oo adiga xitaa aanay ku khusaynin arrinta cidii ay khusaysay aad garanaysid walaalkaa gaarsii. videogan haddaa ka faa'iidaysateen
la share gareeya inta aad jeceshihiin tambis absiya subscribe gareeya haddaa wax su-aalo qabtaan isoo weydiiya yaana la idhibsanin arrintan waa arrinta waxyaabaha xanta ee suuqa noo yaala in badan oo idin kamidana way ugu raaci doontaa marka intaasaan videoga kusoo gabagabeynaya maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullah.